Bismillahirrahmanirrahiim. Galab wanaagsan. Halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha. barnaamijkeena galabta waxayna kaga hadli doonaa furitaanka Euro 2020 iyo kulankii dhaxmaray xulalka Talyaaniga iyo Turkiga iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe, like, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid. inta aynan u gudbin kulankii furitaanka xalay ee Euro 2020 aynu isha la raacno waxoogaha taariikhda koobka iyo dhacdooyinkii laga qoray. tartanka Euro 2020 ay ahayd in la qabto sanadkii hore, balse xanuunka coronavirus dartii ayaa tartanka loo dibdhigay sanadkan 2021, balse tartanka ayaa wadan doona magaciisa Euro 2020. nambarka 12aad ayaa ahaa mid qiimo weyn xambaarsanaa tartanka Euro 2020, waxa uu ka dhignaa in 12 magaalo oo ku yaala 12 wadan oo Yurub ah ay martigelin lahaayeen tartanka sanadkan, balse wadanka Belgiumka ayaa ku guuldareystay inay dhameystiraan garoon cusub oo ay ugu talagaleen martigelinta kulamada Euroga. gooldhaliyaha ugu sareeya ee hal tartan oo Euro ah ayaa ahaa Michel Platini. khadkii dhexe ee Faransa ayaa dhaliyay 9 gool tartankii Euro 1984, isagoo xulkiisa ku hogaamiyay ku guuleysashada Euroga markii ugu horeysay. kulankii ugu goolasha badnaa taariikhda Euroga ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee tartanka taariikhda ka oo dhaxmaray xulalka Yugoslavia iyo Faransa 6 Juun 1960, waxaana 5-4 ay guusha ku raacday xulka Yugoslavia. astaanta Euro 2020 ayaa loo naqshadeeyay in ay noqoto calaamad xoogan oo ka turjumaysa isku xirnaanta dadka Yurub iyo wadamadooda, waxaana sidoo kale ay matal u tahay qiimaha kubadda cagta uu ka leeyahay wadamada Yurub. shirkadda Adidas ayaa sanadkan lahayd naqshada kubadda tartanka lagu ciyaarayo, waxaana magaca kubadda la siiyay uu ahaa Euphoria oo u taagneed Unity iyo Euphoria oo micnaheedu yahay midow iyo xamaasad, waxaana sidoo kale naqshada kubadda loogu dabaaldegayaa ilhaamka tartanka uu qaaradda ku faafiyo, waxaana sidoo kale kubadda ka muuqda xariiqmo madow oo brush oo kala ah taa oo u taagan xuduudaha isku milmay ee Yurub. finalka kaliya ee tartanka Euroga ee gaararigoora tour ayaa ahaa 1976 markii ay wada ciyaareen xulalkii Czechoslovakia iyo West Germany, waxaana waqtigii caadiga ahaa ay ku soo gabagabowday 2-2. goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda tartanka Euroga waxa dhaliyay Dmitry Grichenko, waxa ay ku qaadatay 1 daqiiqo iyo 7 mirir ama 7 ilbiriqsi sida uu taqaano, xilli uu hogaanka siiyay xulkiisa Ruushka kulankii ay la ciyaareen Greega sanadkii 2004. ciyaaryahanka ugu xawaaraha sare ee tartanka Euro 2020 Adelaya ayaa noqonaya Kylian Mbappe. tababaraha xulka Jarmalka Joachim Löw ayaa tartankan uu noqon doona kiisii 7aad ee uu hogaamiyay xulka Jarmalka, waxaana 5 kamid ah tartamadaasi uu gaaray semi-finalka. garoomada lagu ciyaaray magaalada ay ku yaalaan haddii aynu eegno, garoonka Wembley Stadium ayaa ku yaala caasimadda ee wadanka Ingiriiska ee London. garoonka labaad ayaa ah Allianz Arena oo ku yaala Jarmalka, waana garoonka ay ku ciyaarto kooxda Bayern Munich. Stadio Olimpico ayaa ku yaala caasimadda Talyaaniga ee Rome, waana kulankii xalay oo ka dhacay furitaanka Euro 2020. Olympic Stadium ayaa ku yaala Baku oo ah caasimadda wadankaasi Azerbaijan. garoomada kale waxaa kamid ah Krasnoyarski Stadium oo ku yaala magaalada St. Petersburg ee wadankaasi Russia. waxaa sidoo kale garoomada kamid ah Arena Națională oo ku yaala caasimadda Romania ee Bucharest iyo Johan Cruyff Arena oo ku yaala magaalada Amsterdam wadankaasi Holland. garoonkaas ayaa garoonka ay ku dhashay kooxda Ajax. Stadio de la Cartuja ayaa ah garoonka kale ee ay ciyaaraha ka dhici doonaan Euroga, waxa uu ku yaala magaalada Sevilla ee wadankaasi Spain. garoomada kale ayaa kala ah Puskas Arena oo ku yaala Budapest wadankaasi Hungary iyo Hampden Park oo ku yaala caasimadda Scotland ee Glasgow, iyo garoonka ugu dambeeya ayaa ah BARCA Stadium oo ku yaala caasimadda wadankaasi Denmark ee Copenhagen. wadamada Azerbaijan, Denmark, Ireland, Hungary, Romania iyo Scotland ayaa markoodii ugu horeeyay taariikhda martigelin doona koobka Euroga. markana aynu eegno kulankii furitaanka xalay ee dhaxmaray
xulalka Turkiga iyo Talyaaniga. Xulka Talyaaniga ayaa si xoog leh ugu soo laabtay tartamada waaweyn markii xalay guul ay ku raaxaysteen ka gaareen xulka Turkiga kulankoodii furista tartanka Euro 2020 ee ka dhacay Stadio Olimpico ee magaalada Rome. Xulka Azzurri ayaa ku guul dareystay inay u soo baxaan koobkii adduunka 2018 balse markaas wixii ka dambeeyay tababare Roberto Mancini ayaa ku wareegay talada xulka waxa uuna bilaabay dib u dhis weyn isaga oo haatan u muuqda inuu dhisay koox adag oo tartami karta. waxaana sanadkan Talyaaniga lagu sheegaa inay yihiin fardaha madow ee loo saadaalinayo koobka. qaybtii hore ee ciyaarta waxa ay u muuqatay in xulka Talyaaniga uusan dhagaha jalaq u siin fanaanka reer Italy ee Andrea Bocelli oo ciyaarta ka hor bandhigiisa ku qaaday heesta magaceedu yahay Nessun Dorma oo afka Soomaaliga noqonaysa hawo ogolaan midkoodna inuu seexdo ayaa gabagabadii qaybtii hore ee ciyaarta waxa rigoor laga diiday Talyaaniga. balse wiilasha Mancini ayaa bilowgii qaybtii labaad ee ciyaarta la wareegay hogaanka markii daafaca kooxda Juventus iyo xulka Turkiga Melih Demiral uu shabaqiisa ku hubsaday kubad dhexdhig ahayd oo uu soo laaday daqiiqadii 53 garabka xulka Azzurri ee Domenico Berardi. tabar la'aanta xulka Turkiga ee ciyaartii xalay ayaa u sahashay Talyaaniga in goolkoodii labaad ay ka helaan weeraryahanka kooxda Lazio Ciro Immobile daqiiqadii 66 ee ciyaarta waxaana goolkii qatinka u dhaliyay wiilasha Roberto Mancini xidiga kooxda Napoli ee Lorenzo Insigne ciyaarta markii ay mareysay 79 daqiiqo. xulka Turkiga oo haystay 26% kubadda ayaa ku tashanayay weerarada rugaal celiska balse daafacyada qabiirada ee Giorgio Chiellini iyo Leonardo Bonucci ayaa ahaa derbi ay gudbi waayeen ciyaartoyda xulka Turkiga. dhinaca kale bandhiga xulka Azzurri ayaa ahaa mid lagu raaxaysto waxaan Talyaaniga aad mooday xulkii Spain ee 2010 ku guuleystay koobka adduunka kubad isu dhiibada qadka dhexe ee Jorginho Barella iyo Locatelli ayaa ahaa mid wacan waxaana garbaha xulka Talyaaniga ruuxay daafacooda bidix ee kooxda Roma Spinazzola iyo xidiga kooxda Sassuolo ee Domenico Berardi. waxaa maanta halkiisa ka sii socon doona tartanka Euro 2020 oo si xiiso leh ku bilowday waxaana jiri doona 3 kulan oo kala ah. Wales ayaa la ciyaari doonta xulka Switzerland saacada markay ay tahay galabta 4 waxaa xigi doona ciyaarta u dhaxaysa xulalka Denmark iyo Finland oo bilaaban doonta 7 habeenimo ama 1 saac waxaana 10 habeenimo dheeli doona xulka Belgiumka oo la ciyaari doona xulkaasi Ruushka. markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. kooxda Juventus tababaraheeda Allegri ayaa lagu soo waramayaa inuu ogolaaday in kooxda ay u dhaqaaqdo weeraryahanka kooxda Manchester City Gabriel Jesus. kooxda Juventus ayaa suuqa ka raadinaysa weeraryahan cusub waxaana haatan ay isha la raacayaan wiilkan reer Brazil. Jesus ayaa noqon sidii la filayay ilaa markii uu ku biiray kooxda heysata Premier League waxaana City ay u furan tahay iibkiisa haddii qiimo macquul ah laga soo gudbiyo. Manchester City ayaa horaantii bishan iska fasaxday Aguero waxa ayna suuqa ugu jirtaa raadinta weeraryahan caalami ah waxaana City ay ugu cadcadahay kooxaha doonaya saxiixa kabtanka xulka England Harry Kane. dhinaca kale kooxda AC Milan ayaa heshiis rasmi ah la gaartay kooxda Torino iyagoo si toos ah ula wareegi doona qadka dhexe reer Talyaani ee Sandro Tonali. xidiga reer Talyaani ayaa sanad amaah ku qaatay naadiga reer Azzurri waxaana tababare Boli uu ku qancay bandhigiisa. laacibkan waxaa maamulka Milan haatan ay ku dhow yihiin dhamaystirka saxiixa laacibka. Milan ayaa siin doonta kooxda Torino 35 milyan oo euro oo 10 ka mid ah ay hore u bixisay waxa ayna haatan bixin doonta 25 milyan iyadoo 15 ka mid ah ay toos u bixin doonto qaybta kalena ay si gooni ah u dhiibi doonto. sidoo kale Milan ayaa qiimeyn ku wada labada weeraryahan ee Belotti iyo Giacomo Raspadori. Milan ayaa raadinaysa weeraryahan cusub waxa ayna wada hadal horay ula furtay Chelsea iyagoo si bilaash ah ku doonaya saxiixa weeraryahankooda Olivier Giroud balse naadiga Milan ayaa aaminsan in kaliya Giroud uusan ku filnaan doonin. Belotti oo u dheelan naadiga Torino ayaa taageero u ah Milan waxaana horay loola xiriiriyay saxiixiisa kooxda San Siro ku dheesha. dhanka kalena Giacomo Raspadori ayaa weeraryahan da'yar waxa uu u ciyaaraa kooxda reer Talyaani ee Sassuolo. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ay rajo wacan ka leedahay inay ku guuleysato saxiixa weeraryahanka reer Holland ee Memphis Depay oo haatan tartanka saxiixiisa ay ku soo biirtay kooxda marwada duqda ah ee Juventus. xidiga reer Holland ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Lyon uu dhamaaday 30 Juun waxa uuna si bilaash ah uga mid noqon karaa kooxdii uu doono.
waxaana uusan weli go'aan ka gaarin halka uu saldhigan doono mustaqbalka. Juventus ayaa u soo bandhigtay mushaar ka badan kan Barcelona, waxaana kooxda BARCA oo horey xiddigan u dhaweed ay weli ku guuleysan laadahay inay heshiis la gaarto wiilkii hore ee kooxda Manchester United. Isla kooxda Barcelona waxay u soo bandhigtay ayaa la leeyahay kooxda reer Talyaani ee Roma heshiis isku bedelasho ciyaartoy ah, iyaga oo diyaar u ah in dhanka Roma ay siiyaan daafacooda reer Faranse ee Clement Lenglet si ay u helaan qadka dhexe ee Roma Lorenzo Pellegrini. Naadiga Blaugrana ayaa raadinaysa bedelka saxiixii ay lumiyeen ee Wijnaldum, waxaana ciyaartoyda ay doonayso ugu horeeyaan ninka reer Talyaani. Macalinka cusub ee Roma Jose Mourinho ayaa la sheegayaa inuu aqbali karo heshiiskaas, isagoo doonaya inuu adkeeyo daafaca kooxdiisa Roma. Dhanka kalena kooxda Liverpool waxa ay u muuqataa mid la xiriirinaya dhammaan ciyaartoyda qadka dhexe ee Yurub. haatan waxaa la sheegayaa in naadiga Rediska ay isha ku hayso qadka dhexe ee kooxda Lazio Milankovic-Savic. Naadiga Liverpool ayaa baadigoobaysa xiddigii ay ku buuxin lahayd booskii uu ka baxay Jorginho Wijnaldum oo ku biiray kooxda Paris Saint-Germain, waxaana xiddiga reer Serbia haddii uu ku biiro Anfield uu noqon karaa bedel ku habboon kooxda. 26 jirkan ayaa marar badan la xiriiriyay u dhaqaaqida Premier League markii kooxda Manchester United oo tababaro u ahaa Jose Mourinho. Heshiiskiisa kooxda Lazio ayaa ka harsan 3 sano, waxaana taala micno tahay in raqiis aan lagu heli doonin laacibkan qadka dhexe. barnaamijkeeni galabtana waa inageenta. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha, waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhegeysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena, fadlan subscribe iyo like kanaalka, wixii taliyo tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.